السلام عليكم. لح مالين oo uu socday roob culus, roob xoogan kuna socday xajmi xoogan. roobkaas wuxuu isu bedelay daadaran, wuxuu isu bedelay fayabaanaad wasayuul. roobka da'ay ma ahan mid dabiici ah, ma ahan mid ka caadiga oo aan naqaanay. waxaa la sheegay roobka da'ay inuu yahay shanjibaarka roobka caadiga oo aan naqaanay. waxa aan ka hadlayno waa ummad islaami ah, waa balad islaami ah. waxaan ka hadlaynaa Pakistan. maantadan aan hadda joogno Pakistan waxay ku sugan tahay xaalad khatar ah. inta aanan hadal iyo waxba ku sheegin muuqaalkan daabo, xaqiiqatan waa argagax iyo naxdin. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله خير يا خير يا الله خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. roobku wuxuu ka soo bilowday waqooyiga Pakistan, kadib wuxuu u soo fiday bartamaha Pakistan ilaa iyo koonfurta dhulkaas. waa Cumar Maxamed oo si degdeg ah idinku soo gudbinayo daadkii baabi'iyay 15 buundo oo ku yaalay Pakistan. walaalayaal, sida aad ciwaanka ama mowduuca muuqaalkan ku soo aragteen, 1 bisha 2 safar 1444 hijriya waafaqsan 28 bisha 8 Agosto 2022 ku aadan maalinimo Axad ah kuna sii beegan duhurkii ilaa iyo galabtii. waxay ii ahayd maalinta igu xumeyd ee noloshayda soo martay. maalinkaas waxay ii ahayd maalintii igu argagaxa badnayd inta aan noolahay. waxay ii ahayd maalinta igu murugta iyo walwalka badnayd inta aan noolahay. laakiin alxamdulillah, wax waliba waa qadar alle. alxamdulillah, hadeer nicmo alla ayaan ku suganahay. walaalayaal, mowduucan waxaan diyaariyey maalintaas aan idinkaga soo sheekeeyey subaxdeeda. waad fahmi kartaan sababta keentay in aan xilligan soo gudbiyo, dhowr maalin kadib inaan idin soo gudbiyo. waad fahmi kartaan in aynan wax ciyaar ahayn. waxa isoo bajahay wax aan ka argagaxay kana yaabay. walaalayaal, aan isu soo duceyno dhammaanteena murugada iyo walwalka Allah naga haayo. ilaahay ha naga dhigo kuwa waalidkooda baari u noqday kana ducaystay. ilaahay waalidiinteena cimri dheer iyo cibaado suuban ha noo siiyo dhammaanteenba. qodobkan aan meesha uga baxo saaxiibayaal, inakeena mowduuceena maanta. 2 maalin gudaheed oo u socday roob culus waxaa burburay wadooyinka Pakistan. sida akhbaaraadka kanaalka Al Jazeera lagu soo gudbiyey, daadkaas ka dhashay roobkan 6 maalin socday wuxuu burburiyey wadooyinka Pakistan. wadooyin dhererkoodu gaaray ilaa 130 kilomitir ayuu burburiyey daadkan, wuxuuna dumiyey 15 buundo oo ku yaalay Pakistan. waxaa kaloo akhbaaraadka lagu soo gudbiyey burburidda 100 guri oo isugu jira kuwa gebi ahaan u burburay iyo kuwa qayb ka burburayba. waa sida aan ka soo xigtay kanaalka Al Jazeera oo ah warbaahin caalami ah laguna kalsoonaan kara akhbaaraadkeeda. waa mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobtan uu baaba'an ka dhacay. waraysi ay ka qaaday Al Jazeera wuxuu ku sheegay in xajmiga damaarka iyo burburka ay aad u xoogan tahay una daran tahay. حجم الدمار كبير لدرجة أن ما لدينا من معلومات مجرد إحصاءات أولية. كلما توقف المطر قليلا نسارع لإنقاذ المتضررين وحصر الخسائر. المهمة صعبة جدا. معلومات عن كهين الدمار كان يبربر كان واتركوب أو كدجن درناشا حجم جيس وحي كنتي انتركوب لغو سميو وحيري mar waliba uu roobku istaago durbadiiba waxaanu cararaynaa badbaadinta mutadarririinta. waxaanu cararaynaa oo aanu degdegaynaa inaan soo badbaadino dadka mutadarririinta ah, dadka ku dhaawacmay burburkaas laakiin ay nolosha ku jirto. wuxuu kaloo yidhi khasaarooyinka ka dhashay baaba'an iyo burburkan waa kuwa aad u daran una xoogan. qaar ka mid a dadkii waraysiga laga qaaday waxaa ka muuqday oo ay afkoodana ka sheegeen quusi oo ka dhigan iyadana in damaarkan iyo burburkan uu aad u daran yahay una xoogan yahay. العديد من القرى لا يمكن الوصول إليها، لا سيما البعيدة بين الجبال. بعض الناس لا يوجد لديهم حطب للتدفئة، هذا إن توفر لهم الطعام. dhismayaashan oo uu daadkan soo bajahay si kasta ay u adag yihiin, ismahayn karaan mana taagnaan karaan quwada iyo xoog ay biyaha ku socdeen awgeed. daabade fayadaankan ama daadkan ma ahan kii ugu horeeyay ee asiibay Pakistan. waxaa ka horeeyay daad kale oo isagana asiibay kuna dhacay Pakistan. laakiin midkan iyo midkaas farqi weyn ayaa u dhaxeeyo sida laga hayo afka ra'iisul wasaaraha Pakistan. aan soo qaadano
waxa uu ka dhahay Shahbaz Sharif oo ah ra'iisul wasaaraha Bakistan. Fayadaankii 2012 wuxuu ahaa mid weyn oo aad u daran, laakiin marka aan taariikhdeena dib ugu laabano wuxuu yidhi Shahbaz Sharif, hadda waxaan dareemaynaa in fayadaankan iyo daadkan uu sababay baaba weyn oo ka dhigan waxaan dareemaynaa in midkan uu ka daran yahay midkii hore. Shahbaz Sharif wuxuu yidhi meel waliba waxaan ka arkaynaa baaba weyn. haddii aan mawduucaas meesha uga baxo walaalayaal, calaamadaha saacadda qiyaamo waxaa ka mid ah ziyaadatul kabaarid aw ziyaadatul masaa'ib, in musiibooyinka bataan, waana tan aan hadda arkayno oo meel waliba masaa'ibta iyo kabaaridta aan ka arkayno. waxaan ilaahay ka baryaynaa in walaalaheena Bakistan oo muslimiinta ah uu dhibaatadan ka dulqaado, salaam iyo nabadgelyo u soo geliyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in inagana dalkeena Soomaaliya uu noo hagaajiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in masaa'ibta iyo kabaaridta uu naga badbaadiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu soo hanuuniyo cid waliba oo dalkeena dhexdiisa fuxshi iyo balaayo ku bada. allahumma ij'alna hudaatan muhtadiin laa daaliina walaa mudilliin birahmatika ya arhamar raaximiin. waa walaalkiina Cumar Maxamed oo jeclaystay inuu idinla wadaaga xaqaa'iqdan iyo dhacdadan ku soo gudboonaatay walaalaheena Bakistan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.